maalin maalmaha kamida Julaybiib iyo nabiga isku hor yimid alayhi salaatu wasalaam dana markaa uu nabigu ku yiri Julaybiib oo ma guursatay markaas uu yaa rasuul aniga ayaa ii dhisay buu yiri hadana maalin kale nabiga sarkeen yaa Julaybiib wali ma guursatay markaas uu yaa rasuul aniga ayaa ii dhisay markaa uu nabigu orado reehebel inantoodii baa qaan gaadhay oo hadee toolo guurgal u diyaaree waxaad ku tiraahdaa nabi maxamed baa soo diray ku dheh ku salli rasuulkeen sidii nabiga u qadarinayeen dhageyso deedna markaas Julaybiibna waa la yaqaan magaalada Madiino dhan baa taqaan akhlaaqdiisa oo aqal kasta waa lagu hadal hayaayo waxa la leeyahay Julaybiib yaanan gabadh la iskaga dhisin waayo akhlaaqdiisu ma fiicna ninkaasi aan dumarka la kaftamo oo meel walba ku sheekeeyo oo macaasharadiisu ma hagaagsano isku sheegeen deedna markaas reerkiibu u yimido odaygii reerka lahaa buu u tagay deedna markaas uu ku yiri nabiga ay soo diray alayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuxuu salaam buu igu ka soo dhiibay ee horta salaanta iga gudoon markaa buu salaantii ka gudoomay deedna markaas uu rasuulka ilaahay baa ii soo diray igu yiri inantooda ma aragtaan ha lagu dhiso oo inantiina baan u socdaa nabiga amarka soo bixiyay waxay leeyahay culimadu inanta reerkaasi inay qaan gaadhay nabigu sidee buu ku gartay sallallahu rasuul sidoo ku gartay waxa la reer Madiina dhaqan waxay ka sinaayeen haday gabadhu ay daadii lagu guurinayay ay gaadho ayay nabiga u sheegi jireen ee oran jireen yaa rasuulallah hadii aad adigu u diyaar tahayna inantayadii way qaan gaadhay waa ku diyaar hadaad cid kale u rabtana waa ku diyaar oo inantu markay qaan gaadho waxa u soo haasaawaya abaheed ama walaalkeed ama abtigeed ama adeerkeed intaas u soo baadbaadaysa ninka ku munaasibka gabadhaas inagana maanta zamankeena ka warama gabdhaha farmeena ka u raadin masayida soo raadsata ya iyada soo doondoonato wali waxa lagu la dardaarmaayo la yiraahdaa niya mid hay'adaha u shaqeeyo oo noo keen hay'adaha laageena hay'adaha yar kharash badan moogta kharashka badan bixiya fadhiisa soo socodka daaya soo socod lama ogolo dhageysta soo doona maaha inantu aqalkaba kamay soo baxayn waxay ku dhaqmaysay ku amal falaysa quraanka waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخر الآية قبله حجابك وجوه الريا أما جلبابك وجوه الريا قبضة مؤمنة الله قربوا وين الجورجوج نقطة مركه الرئيس جوري جويان أستر كقبض جوري كقبل أما وين نقطة قبض جوري كفدلا وقرن في بيوتكن بركة إن أنت مركه كان قاعد بنيك الصحابي والنبي وشيء يقولي هاي haddaad adigu inanta aad doonaysidna nabi allah waa ku diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa diyaar inantaada inaad nin u raadisaa inaga xageena ceeb loo arkaa oo waxa la leeyahay war matul xal loo hayaayo cid u saaru doondoonaya cid ka reebta ya muslim Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma markii ninkeedu ka dhintay ayaa u soo hasaaway abaheed u soo hasaaway Umar ibn Khattab ayaa intuu Abi Bakar u tagay buu ku yiri ya orta Usmaan buu u tagay ya Usmaan haddaad doontid Hafsa waan ku dhisi markaas uu yiri waan ka soo tashanay kaadi oo u soo noqdo wuxuu ku yiri kolkaan isku noqdeen tashaday waxa ay soo baxday maanta sanadka inaan guursane wala liga raali ahaw haddana Umar ma fadhiisane Abi Bakar Siddiq buu u tago wuxuu ku yiri ya Abu Bakar wal inantayda Hafsa haddaad doonto waan ku dhisi Abu Bakar haayeen ma oran mayana imuudan oo iga aamusay buu yiri muddo yar kadib inanteedii waxa iga soo doonay buu Umar ibn Khattab rasuulka Ilaahay baa iga soo doonay maalintii nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo Hafsa uu guursaday ayaa Abu Bakar iyo Umar iska hor yimaadeen Abu Bakar baa hadlo wuxuu yiri ya Umar malaha qalbigaad wax igu haysaa hawaan kuugu hayaa buu ku yiri waayo inanteeda Hafsa adiga horta Usmaan baan u bandhigay Usmaan jawaab waafiyi soo celiyay oo mayadu igu yiri maanta diyaar uma yihi amma adiga markaan Hafsa ku bandhigay
hayana ima odhan mayana imaad odhan waad ii aamustay markaasuu abubakar ku yidhi aniga arrintaa kaa shaafinaya dhegayso waxaan ogaa nebi maxamed oo xafsa inuu guursado hadal haya markaa sirtii nebigaan hayay buu yidhi ma sirtii nebigaan kuu sheegaa buu yidhi laakiin waxaa iga ballan oo iga go'nayd buu yidhi hadduu nebi maxamed xafsa uu iska dayn lahaa anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi marka dadka ahlul khayrka ee diinta aad ku tuhmaysid ee dabeecadda wanaagsan aad ku tuhmaysid ee dadnimada fiican aad ku tuhmaysid inaad inantaada la doodoonataa ceeb maahina waa curfigii islaamkuna baray weeyaan oo dhaqankii wanaagsana waxaa dhaqan xumo ah inaad inantaada ku tiraahda orodoo bal mid shaqeeyo uun aabba noo keen midaan shaqaynin naga ilaali annakii baaba culculuse sidaasuu markaa nebigu ku ogaaday inantan inay qaan gaadhay oo guriga inan ay joogto deedna markaa waxaa yimiday julaybiib markuu odaygii u tagu yidhi inantiinaan rabaayo nebigaas amarkaas soo bixiyey odaygii markaa uu yaabay julaybiib matiid ha julaybiib baan ahay xataa ushaawira ummaha buu yidhi baliikaada hooyadeed baan la tashanaya way suuraysan jireen dadku bariga waa isku xidhnaayeen ijtimaaciyadda u dhasnayd ummadnimadaa ka winay deedna markaasuu waxa u tagay markaa odaygii baa u tagay islaantii wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayaa nin buu nebigu soo diro inanteenna u soo diray markaa bay tihi nacam wa karaamatan bay tihi waxay tihi wallaahi waan soo dhawaynaynaa waana arrin la maamuusoo la sharfo weeyaan waa nicmad markaasuu ku yidhi innahu julaybiib laakiin ninka nebigu soo diray dee waa julaybiib markaa bay tihi ma julaybiib dib bay uga joogsatay ilaa ninkan waa la yaqaanaa moogtahay dhaqan xumadiisa inantiibaa xagga dambe ka hadashoo tidhi wain kaana julaybiiban walow julaybiibba haba ahaadaba bay ku tidhi ma rasuulkii ilaahay amarka uu soo bixiyey ayaad celinaysaan bay ku tidhi ilaahay iyo rasuulkiisu aniga i dayici maayaan marna meel xun i dhigi maayaan oo i dayici maayaane nebi maxamed hadduu yidhi inantaa u soo dhisa ibixiya bay ku tidhi ilaahay aniga ima dayacaye rasuulkiisuna i dayici maaye may eegin shakhsigan gabadha soo doonay waxaa la eegay ka soo diray baa la eegay yaa soo diray rasuulkii ilaahay baa soo diray calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay baa soo diray deedna waa loo dhisay waa la siiyey gabadhii saxaabadii buu nebigu ku yidhi julaybiib waa caroose bal wax yar u soo keenkeeno isku geeya caawa aroos gale isagoo carooska isku diyaarinayaa loo baxay ghaswatu uxud ghaswatu uxud buu ku shahiiday baa la yidhi isagoona naqalgelin ghaswatu uxud buu ku shahiiday isagoo aanan caroos gelin oo naqalgelin markii dadkii dhintay la kala guranayay buu nebigu saxaabada ku yidhi nin baan tabayaa war nin baan tabayaa war nin baan weli laaho araggiisa aan laahay markaasaa nebi allow gaaladuna wuxuuga way gurteen baktigoogii annakana shuhadadeennii waa kuwan markaabuu nebigu war doondoona markaasaa loogu yimida julaybiib markaasuu nebigu julaybiiba waxaa la helay mayda oo 7 nin oo mushrikiin isaguna laayay isagiina markii dambe la duldhigay meydkiisii markaasuu nebigu waa kan ninkan tabaayay gabadhii buu nebigu u duceeyey ilaahu gabadha cayshkeega maciishadeeda sida roobka ilaahu kaga dhig nolosheeda ilaahu ciriiri ha ka dhigin buu yidhi gabadhii amarkii nebi maxamed way fulisay ninkii julaybiibna lama aqal geline ilaahay shahaado ayuu siiyey gabadhii waxaa la yidhi waxay noqotay gabadh barakaysan oo gabdhaha saxaabiyaadka ugu barako badan oo reerkeegu adduunye iyo diin iyo ubadba ilaahay ka buuxiyey markii dambe rag badan oo dambe oo asxaabta ka mid ah guursaday